madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray caasimadda dalka Eritrea ee Asmara halkaas oo ay uga bilaabatay booqasho 2 maalmood ah. Madaxweyne Xasan ayaa intaanu dhoofin magaalada Muqdisho waxa uu digniin u diray cid kasta oo gacan ku siisay Itoobiya doonisteeda badda isagoo si gaar ah u soo qaaday dalal uu sheegay inay ku gacan siinayaan doonistaasi. Haddaba wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo si dhow la socday safarka madaxweynuhu ku tagay Asmara iyo dabcan hadalkii uu Muqdisho ka sheegay ka hor intaanu dhoofin ayaa faafaynta warkaasi inoo haya. كوثر مدحوينه حسن شيخ محمود waxa uu galinkii dambe gaaray magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea waxa gegida diyaaradaha ee caasimadda Asmara ku soo dhaweeyay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki iyo sidoo kale danjiraha Soomaaliya u fadhiya magaalada Asmara Umar Idris kadib soo dhaweynta garoonka ka dhacday madaxweynaha iyo labada madaxweyne waxay kulan ku qaateen qasriga madaxtooyada ee wasaaradda warfaafinta ee dalka Eritrea waxay sheegtay in booqashada madaxweynaha oo ah 2 maalmood oo ah safar shaqo ah in labada dhinac ay ka wada hadli doonaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada wadan ka dhaxeeya sidoo kale in ay isla jeexjeexaan arrimaha ka taagan gobolka Geeska Afrika iyo arrimaha kale ee caalamka iyo danaha wadajirka ah labada wadan ilaa hadda dhinaca Soomaaliya kama aanay hadlin safarka madaxweynaha marka laga reebay in warbaahinta dawladdu ay sheegeen in ay madaxweynuhu uu safar shaqo ku tagayo dalka Eritrea safarkan uu Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ku tagay Asmara ayaa imaanaya iyadoo ay wali taagan tahay xiisadda ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee koodii bishan magaalada Addis Ababa ku dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed kaas oo ay Somaliland ku sheegtay in muddo 50 sano ah laga kireynayo Ethiopia saldhig ay ku yeelanayaan badda cas iyo sidoo kale 20 kilomitir oo aagaasi ku saabsan tan iyo waqtigaasi waxa soo baxay xiisadda heshiiskaasi ka dhalatay dawladda Soomaaliya ayaa ku gacan saartay heshiiskaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu tan iyo markaa wada dadaal kala duwan isagoo markii ugu dambeeyayna saxiixay sharci ka soo baxay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu diiday meeshana looga saaray heshiiskaasi xalay intaanu maanta ka dhoofin dalka waxa uu la kulmay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya hadal dheer ayuu u jeediyay waxa uu sheegay inaanay marnaba aqbali doonin in heshiiskaasi cidi ay gacan ku siiso Ethiopia waa sida uu hadalka u dhigay doonisteeda badda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh sidoo kale waxa uu hadal u jeediyay Somaliland oo sheegay in aanay bixin karin dekeddaasi madaxweyne Xasan Sheekh waxa kale oo sheegay in dalal ay ka warqabaan in Ethiopia ku gacan siinayaan mashruucaasi inkastoo aanu dalalkaasi sheegin madaxweynuhu markuu arintaasi ka hadlayay waxa uu yiri dhulka naga laga leexdo war caalamkoow ma sii kartiin ma waxay kartiin kuwa laga sheegay ciidan badan Ethiopia u dhisayna kuwa laga sheegay waa maal gelinayna annaga dhisayna magaciisi kuwa aamusan oo isla Soomaalidu bariishada intaba waxa leenahay ku kadsoomina Ethiopia waxaan leenahay shacab iyo dawladba darisaanahay daris wanaagan diyaar lanahay waxaan rabaa markaa inaan bogaadiyo hambaliyeeyo dadka Soomaaliyeed sida aan sheegay meel kasta jooga Soomaaliya gudaheeda waqooyi iyo koonfur iyo bartamo iyo bari meel walba jooga iyo kuwa dalka dibadiisa jira intaba ee Soomaalida ah ee Soomaalinimada u dhashay waxaan leeyahay dhamaantiin waa idin bogaadinayaa dadaalka aad sameyseen ee shucuurtiina sida u muujiseen waa ku mahadsantihiin wax weyn aadna qabateen difaac weyn oo dalka ayaad gasheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu kaasi ahaa oo la hadlayay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ka hor inta aanu maanta ka dhoofin magaalada Muqdisho Kowtar sidad ka warhayso Eritrea waxa jooga kumanaan ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo tababar halkaasi u jooga dawladii hore madaxweyne Farmaajo ilaa 5,000 oo askari ayaa tababar lagu geeyay kuwaas oo ay qayb ka ahaayeen ciidamada badda ee Soomaaliya in badan oo kamid ah dalka ayaa dib loogu soo celiyay waliba waqtiyadii ugu dambeeyay bilihii ugu dambeeyay waxa magaalada lagu soo celiyay caasimadda Muqdisho ciidamo kuwa badda ah oo loo tababaray Soomaaliya dawladda madaxweyne Xasan Sheekh kumanaankaas askari oo xilligii tababarka madaxweyne Farmaajo tagay Ethiopia Eritrea la soo celiyay waxa kale la geeyay tiro aad u badan oo kumanaan kala gaaraya oo ay Soomaaliya Eritrea u dirtay si ay halkaasi tababar uga qaataan ciidamada Soomaaliya loo tababaray qayb weyn oo kamid ah waxa kamid ah ciidamada badda dabcan waxa la filayaa madaxweynuhu inuu booqdo ciidanka Soomaalida ee tababarka ku jira ee jooga dalka Eritrea